agaasimaha waaxda ceelasha dhaadheer wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Soomaaliland injineer Cabdilaahi Axmed Aadan oo weheliyaan maayirka degmada Ceelafweyn Maxamed Aadan Digaale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Ceelafweyn madax dhaqameed iyo sidoo kale sidwaha wasaaradda biyaha ee gobolka Sanaag ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay ceel biyood ee wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ka hirgelinayso deegaanka xamilka oo ka tirsan degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag mas'uuliyiintii mudantii marti sharaftii ka soo qayb waxa hadaladoodii kamid ahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland موسى بيحي عبدي هذه أدبان وقوم هذا قينا ويضردل عصب والله هالراد بيلي بيسقى يو وسيرك بيوه بوضان وسيرك وسارد بيها هذه أدبان وقوم هذا علينا ما أنت ريق النسوق الشيء هل كان ملك الصباح كينه يسوون بعد وسارد هايستوح حكومة يسوون بنا هذه هذا كربات السنين مدحوينه مدان تكود بنا السنين هذه أدبان وقوم هذا علينا magaalada xamilka oo ka tirsan degmada Ceelafweyn maanta ay bishu tahay 16 bishii koowaad waxaan insha Allah ka bilaabi doonaa oo taagan yahay riigii laga qodi lahaa ceelkan insha Allah waxaan rajaynayaa in Ilaahay ku guuleeyo oo bulshada biyo uga soo saaro waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mas'uuliyiinta gobolka iyo dhammaan madaxda kale Ilaahay waa mahadle wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha oo ballan qaaday bulshadan deegaankan Ceelafweyn inuu insha Allah tacaala ka xaqabtiro wasaaradda biyaha waxaan aad iyo aad insha Allah horjeeynayaa in ceelkan iyo ceelal kale oo deegaano badan oo ku hareeraysan oo dareemayno baahida ay qabaan biyood oo qaybtood sahan lagu sameeyay in insha Allah iyagana la hirgeliyo xukuumaddu waxay heegan u tahay oo baahida koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad ba siisay arrimaha biyaha sida bulshada ka warqabto aad baan insha Allah tacaala u rajaynaynaa ka wasaarad ahaan iyo ka gobol ahaanba anigoo ku hadlaya magaca Taakulo waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo wasaaradda horumarinta biyaha wada shaqaynta fiican ee aanu leenahay heer qaran oo nagala joogo Cabdilaahi iyo heer gobol oo sidoo nagala joogo waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Oxfam oo donor ama funderka mashruucan waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland oo keentay maanta ceel waa weey maanta taariikhdu waa xamilka goobta marka hore waa xamilka taariikhdu waxa weystay 20 bishii koowaad 2023 maanta waxa laga hirgelinayaa tuulada xamilka ceel biyoodka cid alaale cid ka soo shaqeysay aad baan ugu mahadcelinaynaa maanta waxaanu joognaa riigii xamilka Ilaahay baa keenay mahadda koowaad Ilaahay baa iskale mahadda labaadna waxaan siinayaa dawladda Soomaaliland siiba wasiirka biyaha waxay wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha halkan u soo dirtay 3 bilood ka hor kooxaha sahanka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha kooxahaasi waxay qaadeen daraasad in biyo laga baaro soonahan riboodka ay soo gudbiyeen iyo daraasadda ay soo gudbiyeen waxay sheegaysaa in la qodo halkan oo magaalada xamilka ceel dheer oo marka mitir dhabsigiisu noqonayo 260 ilaa 400 oo mitir la gaadhayo 360 ilaa 400 oo mitir wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha markii loo soo gudbiyay riboodkaas waxay ka howlgashay sidii ceelka u keen lahayd iyadoo kaashanaysa partneriska nagala shaqeeya horumarinta biyaha waxay isla markiiba ka soo jawaabtay baaqaas maxay hay'ado ay soo jeediyeen timamka sahanka ee wasaaraddu in halkan ceel la keeno isla markiiba wasaaraddu waxay soo dirtay riigan oo maxay hay'ado company-ga Nugaal Drilling Company oo maanta ka bilaabay insha Allah biidnillah halkan shaqadii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iyadoo wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu bilan ka hor ay ceel dheer ka qoday isla markaana ka dhameysay magaalada Ceelafweyn ceel dheer oo biyo badan isla markaana biyo macaan ay ka dhameysay magaalada Ceelafweyn in isla imika riigii oo ka dhaqaaqin Ceelafweyn immediately ay magaaladan xamilka u soo dirto ay maanta ka bilowdo deegaanka xamilka waxaan leenahay baahida uu qabteen idinka ka warramo waxa tahay waxaan maanta ay nootay inuu mooday sida baahida ugu qabtaan ayaa la idinka baahan yahay inaad dadka u soo dhaweysaan haday tahay qolada riiga iyo haday tahay qolada wasaaradda iyo haday tahay cid kasta hawlwadeen ka ama idinka baahan yahay xamirow inaad soo dhaweysaan gacmaha ay soo qabsataan sidii mashruucaasi uu idinku hirgeli lahaa ومحمد سوتة الفشل قرن كسمالن علفوي